بسم الله الرحمن الرحيم قدونك قولها وكيلة السمادة مدح حبناها بارلمانك صاحبدي ترتن كان كودا جرني دمان مرتشرف كهالك سكوتميد علماء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacabka Puntland iyo guddiga hagaayay doorashada maanta halka dhacday oo muujisay si ay ku jirto ilbaxnimo deganaan kuna dhacday si nabadgelyo ah waxaan halka uga mahadnaqayaa madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo ku-xigeenkiisii hore mudane Cabdi Xakiim iyo dhammaan madaxda dawladda Puntland ciidamo iyo rayidba waxaan aad ugu faraxsanahay natiijadii halka soo baxday waxa ay bilaabatay waji cusub oo dadka reer Puntland aan rajaynayo inaan mas'uuliyadda ay saareen aan ka soo bixi doono waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabka inta halka joogtay inta maqanba inay gacmaha isqabsadaan inay dhismaha Puntland iyo Soomaaliya ka fakaraan in waji cusub oo walaalnimo ah u bilowdo doorashadii maanta halkaas ku eg tahay dhibaatadii iyo isjiijiidkii ay lahayd marxaladii aan ku jirnay doorashadu way dhamaatay waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Generaal Asad oo aan ku soo harnay wareegii ugu dambeeyay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh